Assalaamu calaykum daawade. Waa anigoo Amo Carafaada. Muuqaalkan oo koobnaan doona waxaan kugula wadaagi doonaa taariikhda dagaalkii The Cold War la magac baxay ama dagaalkii qaboobaa. In badan oo inaga mid ah oo laga yaabo adiga laftaadu inaad ka mid tahay waxaynu maqalnay waxa la yiraahdo dagaalkii qaboobaa The Cold War. Taariikhda dagaalkan iyo wadamada uu u dhaxeeyay qasaaro wixii laga dhaxlay iyo xoog kale oo khuseeya dagaalkan ayaan muuqaalkeenan maanta oo koobnaan doona kugula wadaagaya. Laakiin intaynan muuqaalkeenan oo xiiso badan iyo aqoon xambaarsan aynan gudagelin, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkayga soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channelka. Haddii aad asxaabta Amo Carafaad ka mid tahayna, muuqaalkeena like saar. Daawasho wacan. Xilligii uu dagaalkii labaad ee dunida soo gabagaboobay, taariikhduna ay ahayd sanadkii 1945, saddexdii quwadood ee gaashaanbuurta ahaa ee dagaalkii labaad intii uu socday waa wadamada Mareykanka, Midowgii Sofiyeeti iyo Boqortooyadii Ingiriiska ayaa saddexdoodii hogaamiyay isugu yimaadeen magaalada Potsdam ee wadanka Jarmalka si ay u soo saaraan shuruudo lagu soo gabagabeynayo iska horimaadkii ugu dhiiga badnaa adduunka. Waa dagaalkii labaad ee adduunka. Saddexdan quwadood shirkaasi waxay ku heshiiyeen in dalka Jarmalka ay markaasi u kala qaybsadaan qaybo mid kasta uu saamigiisa xukumo. Sidoo kale Midowgii Sofiyeeti waxay u aqoonsadeen inuu qabsado wadanka Poland. Heshiiskan ay saddexdan quwadood ku qaybsadeen dhulka intaasi le'eg gacan ku hayntiisa waxay uga dan lahaayeen sidii loo gaari lahaa nabad waarta. Laakiin heshiiskan dabadii markii 18 bilood oo kaliya ay ka soo wareegtay, waxaa bilowday dagaalkii qaboobaa oo socday in ka badan 40 sannadood. Intii uu socday shirkii Potsdam ka dhacayay, waxyaabihii ay quwadahani ku heshiiyeen iyo qodobadii ka soo baxay wax qoraal lagama samayn, warbaahintana lama wadaagin. Isla markii uu shirkaasi dhammaaday, madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi Harry Truman ayaa hogaamiyihii Midowgii Sofiyeeti Joseph Stalin waxa uu la wadaagay war argagixiisa wata. Waxa uuna ku yidhi, Mareykanka ayaa ku guuleystay tijaabada hubka sida ba'an wax u gumaada, awoodna u leh inuu magaalooyin dhammaystiran ciidda ka hoos mariyo. Waxaana uu uga jeedaa hubka nukliyeerka. Waana markii ugu horeysay dunida ee hub sidan u khatar badan dunida lagu arko. Markii toddobaadyo aan badnayn laga joogay warkaasi uu Mareykanku la wadaagay Midowga Sofiyeeti, ayaa dowladdii Mareykanku hubkii nukliyeerka u isticmaashay ama u adeegsatay in Japan ay ku khasbaan inay isdhiibaan, maadaama hubka nukliyeerku yahay mid la tijaabiyey laguna guuleystay inuu yahay mid awood u leh inuu sababo baaba' daran. Si dhaqso ah, dowladdii Mareykanka ayaa noqotay midii ugu gacan sarreysay xulafadeedii kuwa helinaysay waqtigii dagaalka labaad socday. Intaasi wixii xigay wuxuu noqday tartankii halista badnaa ee loogu kala tartamayay sarreynta. Waxaan loolankani u dhex marayay labada quwadood ee Mareykanka iyo Midowgii Sofiyeetka. Waxaanu hirdankan kala sarreyntu socday ilaa uu ka burburay Midowgii Sofiyeeti oo taariikh ahaan ku beegnayd 1991. Walow labada ummadood ee Mareykanka iyo Sofiyeetku ay ahaayeen kuwo xasiloon, laakiin waqtigaasi wuxuu noqday mid kharashaad badan lagu bixiyo dhisidda ciidanka ama dhisidda dhanka ciidamada. Waxaa sidoo kale waqtigaasi dhacay dagaallo dhiig badan ay ku daateen oo ka dhacay qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Latin America. Waxaana dagaaladaasi sabab u ahaa loolankii loogu jiray xukunka adduunka ee u dhaxeeyay dowladaha hanti-wadaagga ah ee Mareykanku hogaamiyo iyo kooxihii Shuuciga ahaa ee Sofiyeetku hogaaminayay. Dagaalkan la magac baxay The Cold War ama dagaalka qabow wuxuu socday in ku dhow nus qarni. Haddaba dagaalkan maxaa loogu bixiyay The Cold War ama dagaalka qabow? Sanadkii 1945, wax yar kadib markii uu Mareykanku tuuray bombka atomikada ama nukliyeerka ee uu ku tuuray magaalooyinkii Hiroshima iyo Nagasaki ee wadankaasi Japan, qoraal British ah ayaa ereygan u adeegsaday qormo uu ku sahamiyay micnaha bombka nukliyeerka ahi xiriirka caalamiga ah ku yeelan doono. Bombooyinkan nukliyeerka ah ayaa magaalooyinka Japan ku laayay
in ka badan 100,000 oo qof oo Japanese ah, taasi oo dunida kusoo kordhisay cabsi aad u daran oo laga qabo hubkan sida arxan-darrada ah wuxuu xasuuqaya. Qoraagan Britishka ee kelmaddan isticmaalay ayaa qormadiisa ku muujiyey walaaca inaan nabad waarta ka dhex dhalan karin ama ka dhex dhalan doonin wadamada awoodda badan, taasi beddelkeedana abuuraysa waddan aan weligii hal mar la qabsan karin, markaasina dariskiisa kula jira dagaal qabow. Waana sida magaca dagaalkani The Cold War uu ku baxay. Saadaashii qoraaga Britishka ayaa rumowday iyadoo kalsooni darrada u dhaxaysa xulafadii hore ee Mareykanka iyo Midowga Sofiyeeti ama waxa maanta loo yaqaano Ruushku ay sii korodhay. Haddaba, sidee ayuu ku bilowday dagaalkan qabow? Midowgii Sofiyeeti waxaa ku dhacay khasaarihii iyo dhimashadii ugu badnayd intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku oo markaasi uun soo idlaaday. Waxaa kaga dhintay halkaasi qiyaas ahaan 24 milyan oo qof, waxaanay aad uga dagaalameen ciidankii Naasiyiinta goobihii ay xukumayeen ee ahaa bariga qaaradda Yurub. Markii dagaalku soo idlaaday, shirkii ka qabsamay Potsdam oo ah gudaha Jarmalka, kaasi oo lagu qaybsanayay dhulka Jarmalka iyo bariga Yurub. Sidii dhulkaasi loo qaybsaday kumuu qancin hogaamiyihii Sofiyeetka ee Joseph Stalin, waxa uuna dareemayay in saamigii ay kooxdiisii Sofiyeetku xaqa u lahaayeen aysan helin, markaasina laga sadbursaday. Dalka Mareykanka diblomaasi u dhashay oo lagu magacaabo George Kennan ayaa qeexay kalsooni darrada sii kordhaysa ee Midowga Sofiyeeti. Waxaanu sheegay inuu Midowga Sofiyeeti aanu ahayn mid amni ah, mustaqbalka fogna ay adkaan doonto inay reer galbeedka isku kalsoonaadaan. Dowladdii Mareykanka oo xoojinaysa hadalka diblomaasigan ayaa bilowday qorshe ay kaga hortegaysay in saamaynta iyo aragtida Sofiyeetka ama shuuciyaddu ay dunida ku faafto. Mareykanku wuxuu markiiba helay fursad uu ku bedelo siyaasaddiisa cusub. Sanadkii 1947, Britain ama Ingiriiska ayaa waxay ku dhawaaqday inay kaalmada kala laabanayso Giriigga iyo Turkiga oo labaduba la dagaalamayay kacdoonno shuuci ah. Madaxweyne Harry Truman oo ahaa kii markaasi Mareykanka horkacayay ayaa munaasabad qabtay si uu Kongareeska u weydiisto dhaqaale uu ku caawiyo labada waddan ee Turkiga iyo Giriigga, isagoo asaasay mabda ah in Mareykanku uu taageero dalka ay u hanjabaan ciidamada Sofiyeetku ama kacdoonkii shuuciyaddu. Stalin oo ah hogaamiyihii Sofiyeetka waxa uu arkay tallaabadan inay tahay dagaal qarsoodi ah oo lagu bilaabay Midowgii Sofiyeeti ama aragtida shuuciyadda. Markii halkaas xaalku gaadhay, ereygan The Cold War oo la micnaha dagaalka qabow ayaa noqotay kelmadda lagu tilmaamo halganka fikirka ee u dhaxeeya hanti-wadaagga reer galbeedka iyo shuuciyadda bariga. Sidaasina waxaa ku soo caanbaxay kelmaddan ama magacan The Cold War oo qoraallo badan loo isticmaalay si loo muujiyo dagaalka u dhaxeeya shuuciyiinta reer bariga ah iyo reer galbeedka hanti-wadaagga ah. Intaasina waxaa ku eg muuqaalkeennii aan kaga hadlaynay dagaalka qabow. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelkeena soo booqato, waxaan kaa codsan inaad subscribe saarto. haddii aad asxaabteena ka mid tahayna muuqaalka like saar. mahadsanid.